السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن سلامي أدمان خيارتك وحيران برايق بالشدة يوتيوب channel كيغا أدبايد السلوينية. waxaan rabaa inaan koorsadii aan iclaamiye xalay aan halkan ku duubo darsigeeda koobaad ama course overview ama muuqaalkeeda koobaad. Muuqaalkan waxaa uga hadli doonaa dhammaan koorsada iyo wax ku saabsan. Qaar ka mid ah waxaan ku sheegay muuqaalka shaacinta ahaa. Course title ama titleka course ama ciwaanka koorsada waxaa weeye Elements of Transportation Engineering. Cidda koorsada bixinaysa waa anigu ah Bashiir Sheekh Cabdullaahi Cabdi ama loo yaqaano Engineer Shaati Cadde. Professional Civil and Infrastructure Engineer waxaan haystaa khibrad ka badan 7 sano dhismaha wadooyinka iyo guryahaba. Koorsadan yaa dhiganayo ama cidee loogu talagalay inay barato. Haddii afartan mid ka mid ah tahay, this is for you, waa koorsadaada weeyaan, waa inaad gadataa. Qodobka koowaad Somali Civil Engineering Students, yani dhammaan ardayda Soomaaliyeed, shanta Soomaali meel kasta ay joogaan. Fresh graduateska shaqa raadin shaqa doonka ama dadka kullu soo qaran jibiyay ee injineerada ah. Sidoo kale road construction professionals dhammaan dadka ka shaqeeya wadooyinka ayaa anfacaysa koorsadan ama cid walba oo danaynayso inay waxan ku ogaato ama barato Somali infrastructure dhismayaasha wadooyinka iyo wax la xiriira Soomaaliya ayaan ku soo dhaweynayaa koorsadan. Curriculumka ama waxa aan ku baran doono koorsada 5 chapter weeyaan. Chapterka koowaad waxaan kaga hadli doonaa Introduction to Transportation Engineering aniga oo tilmaami doono role of transportation in Somalia, Somali's development, yani roolka ama doorka ay leedahay horumarinta Soomaaliya dhanka wadooyinka ama transportationka laga hormariyo. Waxaan tilmaami doonaa intee hab ayaa lagu safraa, modes of transport. Waxaan ka sheekeyn doonaa roads oo ah mid ugu muhiimsan la dhihi karaba koorsada 90% ama ka badan ayay ku saabsan tahay. Airports baan tilmaami doonaa, ports, railways, dhammaan modeska ama waxyaabaha lagu safro ayaan tilmaami doonaa. Chapterkaas gudihiisa waxaan kaloo sii sheegi doonaa road construction process ama cidda ka shaqeyso road ama qaabka loo heergareeyo consultancies-ka contractor-ka duruus fara badan ayaan insha Allah taala idin kula wadaagi doonaa. Chapterka labaad waxaa weeye geometric design. Waxaan dhihi karaa waa chapterka ugu muhiimsan highway design ama koorsadaanba. Asagana waxaa waa chapterka ugu ballaaran wax ka badan 25 darsi ama 25 muuqaal ayaan ka diyaariyay. Marka waxaad ku baran doontaa key factors affecting geometric design, yani faktarada saameynta ku yeesho geometric design oo ay ka mid yihiin traffic, terrain, climate and others ayaan insha Allah taala idin wadaagi doonaa. Waxaan kaloo idin wadaagi doonaa road classifications anigoo wax meelo badan ka fiirina. Hadda waa mid ka mid ah urban iyo rural roads. Waxaan fiirin doonaa markaan ka fiirino materialka la isticmaalay, functionality-da, meesha ay ku yaalaan, location-keeda, so many ilaa 5 jeer ayaan kala qaybin doonaa wadooyinka. Waxaan kaloo ka hadli doonaa alignments. Alignments waxaan kula wadaagi doonaa horizontal and vertical alignments, horizontal curves, vertical curves iyo cashiro kala badan. Waxaan kaloo idin tilmaami doonaa safety-ga oo ay ka mid tahay side distance iyo waxyaabo kale oo insha Allah taala doorkeeda muhiim u yahay. Chapterka saddexaad waxaan uga hadli doonaa road pavements. Road pavements laba qaybood oo waaweyn ayaa la kala qaybiyay. Qaybta koowaad waxaan ku faahfaahsan uga hadli doonaa pavements. Pavementiga labadaas baa loo qaybiyaa inta badan inkasta oo modern uu jiro oo loo yaqaano semi rigid pavements. Qaybta labaadna waxaan ka hadlaynaa functionska ay qabtaan ama functionska labadaas pavement flexible pavementiga. Waxaa ka mid ah noqon doona marka subgrade oo ah aasaaska wadada, subbase oo ah lakabka ku xigo, base oo ah kan ka sii sareeyo, wearing course, AC, asphalt concrete iyo insha Allah taala mararka qaar anoo tilmaami doona iyadoo la sameynayo design consideration meelaha qaar in loo baahan doono road bed wax loo yaqaan oo ka hooseeyo subgrade-ka. Marka cashiro faahfaahsan ayaa isagana kaga hadli doonaa insha Allah. Chapterka afraad waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano road construction material, qalabka loo isticmaalo wadada in la dhiso. Anoo si faahfaahsan oo tilmaami doona soil ayada wuxuu ka saari doonaa. Waxaan ka sheegi doonaa soilka characteristics-keeda, dabeecadeeda, properties-keeda, testiyada, waxyaabahaas ayaan insha Allah taala tilmaami doonaa. Aggregate ayaan ka hadli doonaa shubka, yani jayga loo baahan yahay wadada in lagu dhiso. Waxaan tilmaami doonaa asphalt concrete ama AC oo bitumen, tar iyo insulation waxyaabahaas insha Allah taala ayaan ka afgargarin doonaa. Ugu dambeynna waxaan kusoo gabagabayn doonaa chapterka shanaad ee traffic engineering anoo tilmaami doono traffic flow theory iyo signal design for Somali cities iyo road safety strategies waxyaabahaas insha Allah taala ayaan kaga hadli doonaa.
qodobka xigo paymentiga ama paymentiga qaabka lacag bixinta waa lacagta lagu baranayo koorsada waa $16 waa special price for Somali students waxaan ugu talagalay waa ardayda Soomaaliyeed inay wax ku gataan waxaan u maleynayaa inay tahay qiimo la awoodi karo waxaad ku diri doontaa labadaas number EVC iyo EDAB 351352 koorsada markaad dhamayso waxaad heli doontaa certificate ka soo baxday Wama Academy oo ah waxa weeye akademiyad ka shaqeyso cilmiga engineeringa marka waxaa lagu muujin doonaa magacaada iyo koorsada magaceeda iyo cidda ku siisayba how to enroll see lisaga diiwaangeliyaa lacag waxaa soo diraysaa $16 ah EVC ama EDAB whatsapp ayaad igu soo diraysaa payment proof oo screenshot ka soo qaadayo within 24 hours waxaa ku bilaaban doona duruusta insha Allah taala message-ka ama waxa aan rabo inaan halkaa kula wadaago insha Allah taala waxay noqon doontaa aniga yani aan 7 sano khibrad haysto waxaan idinla wadaagi doonaa khibradayda iyo aqoontayda aan u leeyahay wadooyinka I will teach you practical skills you want to find textbooks yani waxaan idinla wadaagi doonaa practical skills maadaama aan wadooyin ka shaqeeyo casharo aan classes kale idinkugu dhigin ayaa insha Allah taala idin tusi doonaa maantaba iska diiwaan geli insha Allah taala waad ku liibaan doontaa salaamisanahay يعني waxaan ka wadaa practical skills baa idin la wadaagayaa rigid pavementiga iyo flexible pavementiga iyo duruusta aan idin siiyey oo maxaa la jiray theory-ga duruus kale ayaa garab socon doonto oo practical ah oo wadooyinkii insha Allah taala si live ah idin tusi doono insha Allah kusoo dhawaada koorsada insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontiin any concern waa ila soo xiriiri kartiin nambaradaas WhatsApp ayaan ku isticmaalaa marka soo dhawaada khayrta wasalaamu calaykum warahmatullahi